السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان غفر أحسن هاي إن ما ركتي وربحنتان قروح بدن سوي شيء وسيرك إياه حرالين تياتليك وحيانكو رنتينا سؤالها نعاد يعاد أيام ما ركتي وهاي سؤال مناسبة ويحل بهندو ويدين وعن ربعنا رنتي أنا مهد عليه بقاديو حراليها ورنتي أي كم وقته إلا وقتي لا صوحري maamuladii iska dambeeyay inuu soo gudbinayay markasta oo gudiga shuruucda u soo gudbinayay dhibaatada dadka haysata inuu ilaa maaragtay xiraalinta dawladda Soomaaliya wasiirka cadaaladda dawladda Soomaaliya cid kasto ay khusayso inuu u galay qayladaan aan jawaabteedii la helin runtii waan bogaadinayaa waxaan u arkaa aqoon iyo karti iyo hufnaan inay arintaas ku timi inuu halkan kaga soo jeediyo iyadoo dhameystiran waxaan u arkaa warbixintiisa ilaa shalis cidii dadkan qareenka u ahayd inuu sanin Soomaaliga sax u aqoon u ahaa inuu ahaa nin Soomaali sujuuya in aan dadka la xirayna ay ku cadayn burcad badeed waxaa mooda xuquuqdoodina in la dhaafsaday in Puntland lagu xiro waxa halka ka muuqataya inaan wax sharci ah iyo wax qaynuuna dadkaasi ku xirnay wasiirka hadalkiisii uu dib ugu noqday waxay isugu soo ururtay inay dadkaasi ku xiran yihiin sifo sharci ah oo oran sharci kuma xirna marka hadduu yiri waa loo hoosgeliyay oo heshiiska dadkii galay ka fiirsi meesha kala jirin arrin dadkaas sharaftooda iyo cidigooda laga ilaaliyay xirani kama muuqato meeshaas waxayna sii xoojinaysaa warbixintii uu ina siiyay xiriiraaliyo anigu waxaan u arkaa dadkaasi kuma filaan kadho sharci kuma xirna iyo sharci bay ku xiran yihiin dadkaasi waa inay xuquuqdoodii helaan oo sharciyad kuma xirna baan leeyahay waana inay magdhow helaan kuma filaan kadho habka ay ku xiran yihiin waayo 2013 hadii la halka la soo mariyay la keenay Puntland golayaashii lama marin golaha xukuumadda lama marin barlamaankana lama marin saasay dadkaasi waxay ugu xiran yihiin inaan xil la iska saarin oo madaxdii oo madaxweynuhu u sareeyo iyo dadka hadda jooga iyo qareenna inay helin mudanayaashuna inaanay waajibaadkoodii gudan mudanayaal sidoo xiraaliyuhu soo jeediyay ama mudanayaal badan ay soo jeediyeen waa inaynaan tayna gabin ee waajibaadkeena dastuuriga ah qodobka 64 farqadiisa afraad waa inaynu dadka xuquuqdooda la lumiyay iyo waxa ay xaq u leeyihiin iyo magdhowdooda iyo in la sii daayo ma kuma filna in la raali geliyo beesha caalamka in la raali geliyo MRU kuma filnaan kadho dadkaasi waxa la isla qiray inayan ku xirnayn wax sharciyada wax nidaama maadaama adduunka dhan laga sii daayay oo ogtiin kuwii ku xirnaa Faransiiska in la sii daayay shalis la sii daayay oo sida xiriiraaluhu sheegay ay ku soo booqdeen guryahoodii halkaana waxa ka baxay mudanayaal arbacadii ku hadlay in si gaar ah maamuladii hore cid u sii daayeen in si sharci ah wixii baxayna lagu sii daayay inay waqtigoodii dhameysteen mana dhici kadho inaan wax u qareeno oo wixii la ina ka filayay dadku ina ka maqlaan maahe inaynu wadiga gacan dadka jarayno waa maasantiin waxaan noo arkaa inaynu shaqadeennii baa dhimana qabsanno mudanayaal guddoonkuna hormuud noogu noqdo dhinacyadana aan iska taagno wasaaradda cadaaladda iyo xeer ilaalintana shaqada wanaagsan oo haysaan waa inaa ku dadhaan wiilkaaga iyo walaalkaa iyo kan kuwa dhashay ka soo qaadaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanna waa isku halka afar kan koonfur ku dhashay oo galmudug u dhashay kan hirshabeelle u dhashay kan Puntland u dhashay waa inuu ina kaga dhibaday yahay kan halkan hooyadii iyo walaalkii u tagayaan dadkuna waa hal qureetaynu nahay Soomaali baynu nahay walaalaynu nahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi